Itoobiya waa dawlad qarniyo badan jirtay haddana ka dhacaan gaboodfallo bulsho waa arrin ama dhacdooyin ka dhaca gudaha dalka Itoobiya. soo duulan xasuuq carruurtii iyo maatidii ayay lahayd ciidankii New Booliska iyo ciidan macawisle iyo ogaadeenkii oo wada socda waxyaabo ka ku noqotay guud ahaan geegaska Afrika gaar ahaan dhulka ay degaan Soomaalida ku dhaqan bariga Afrika waa oday ka sheekay arrinkeenu caawa. goobtu waa tuulaha ama qabalayga dacawaley ninba sidoo doona ha u yaqaane waxaa muran dhulmadhalaysahay ku dhex maray laba qabiil oo isku deegaan iyo isku oodba ah. labada qabiil waa dad wadaaga doog deegaan iyo dunyaba waa bulsho xoolo dhaqato ah kana caafimaad qabta arrimaha siyaasadda balse aan ka madhnayn gacan cadaawe. muran iyo dhimasho badan kadib waxaa xusid mudan in hoggaamadii dalka la saftaan hayb ahaan haybtooda ayagoo ilaabay inay labada qabiilba hoggaan u yihiin. waxaa dhacay xasuuq isirsafayn muquunis awood sheegasho adeegsi awood dawladeed waxaa la laayay carruur haween odayaal iyo maati aan loo aaba yeelin. waxaa taariikhda Soomaalida laga diiwaangeliyey in markii u horreysay la afduubo odayaal dhaqameed ku hawlanaa nabadaynta goobaha lagu murugsanaa ama lagu dagaalamayay. waxaa taariikhda gashay xasuuq shacab in dadkii la laayay guryahoodii la gubo xoolihii la gubo sidoo kale dadka qaarna la gubay. dhacdooyinka laga diiwaangeliyo guud ahaan dunida tan ay ku noolnahay sanadku waa dabayaaqada sannadda 24 waxaa ululuf colaad is-uruursi gaashaanbuursi baahsani uu ka socda guud ahaan dhulka ay degaan Soomaalida ku dhaqan deegaamada ay degaan ee Itoobiya. waa qoom qolooyin qabaa'il isu bahaystay carqaladaynta nabadda geega Soomaaliya. waxaas qoraya qisooyin qulqulatooyin qaabaysan oo salka ku haya colaad baahsan oo qarniyo badan soo jirtay kuwaas oo qaab dhismeedkoodu ku qotomo qolo nacayb iyo isirsafayn. waa mudan taariikhuhu mala awaal lahayn milixsiga baalmadaymoodka wixii qarniyo hore jiray waa mugdi gelinta nolosha maanta taagan. waa marmarsiyadoon aan loo meeldayin iyadoo la soo minguurinayo madashana la keenayo maalmo hore tegay. waa xasuuq baabi'in cidhibtir lagu hayo dadyow aan waxba galabsan waa adeegsiga shaadh dawladeed iyadoo lagu muquuninayo dad gaar ah. waa colaadda boqolaal jirsatay oo loo hayo qabaa'ilka gaarka ah ee dega dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. waa colaad horeba u jirtay oo hadba loo raadiyo wadiiqooyin cusub iyadoo ay marar badan oo horeba ay dhacday. waa hami hiiraal hiigsi hore oo jiray oo ku salaysan difaacasho ay dadka deegaanku isdifaaci jireen iskana difaacayeen shuftada dirayska sita ee ku mabay dhiigga shacabka. waa halow iyo habow aan meel haysan oo ku aadan cadaadis. waa arrin ay dabada ka riixayaan siyaasiyiin ku abtirsada magac qabiil. waa tala taxan oo tidcan laguna wada socdo ku tallaabsigeeda tuhun la'aan timaado walbaaba tagta lehe. waa arrin tashi badan laga yeeshay oo salaadiin siyaasiyiin cuqaal aqoon-yahan haween iyo dhallinyarba ay ka siman yihiin. ma aha haddaba markii u horreysay ee xasuuqkan oo kale ay geystaan ciidamada banaystay dhiigga shacabka waa New Booliska. 5 Juun 2016 ciidamada New Booliska ayaa gudaha u galay tuulada Jaamac Duubed ee bariga ismaamulka Soomaalida Itoobiya kadib markii ay sarkaal lagu dhaawacay muran dhex maray ganacsatada deegaanka. booliska ayaa bilaabay inay si aan kala sooc lahayn u toogtaan. waxayna dileen ugu yaraan 14 rag ah iyo 7 dumar ah. kadibna waxay buuliqaysteen tukaamo iyo guryo. dadkii ka badbaaday weerarkaasi ayaa sheegay ugu qabtay markuu ugu qabtay wixii soo mariyay halkii ma garanaysaa dadka lagu leeyahay
deedna dadkii saasaan u jilaacay aniga aabbahay uu ku jiray aabbahay mayda baan markaa waan ilaaway maxaan ku dhahaayay wixii ma garanaysaa dhacayay iyo wixii rasaas ahaa markii aan ilaaway waan istaagay New Boolisku waxay dileen 21 tuulo oo ka tirsan gobolka Soomaalida waxayna burburiyeen bulshadan taagta daran laakiin ma jirto calaamad muujinaysa in dawladdu ay ka shaqaynayso sidii qofna loo horkeeni lahaa cadaaladda. maamulka Itoobiya ayaa gobolka Soomaalida ka sameeyay ciidanka New Booliska sanadkii 2007 markaas oo uu sii kordhay iska hor imaadka hubaysan ee u dhaxeeya jabhadda ONLF iyo dawladda. sanadkii 2008 New Boolisku waxa ay noqdeen ciidan caan ah oo ka hortaga fallaagada oo uu qoray taliyihii nabad sugidda gobolka Cabdi Maxamed Cumar oo loo yaqaanay Cabdi Iiley. Cabdi Iiley ayaa sanadkii 2010 noqday madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida iyadoo ciidamada New Boolisku ay sii wadaan inay hoos tagaan. ciidamada New Boolisku waxay inta badan ku lug leeyihiin dilal sharci darro ah, jirdil, kufsi iyo tacadiye ka dhan ah dadka ku nool gobollada Soomaalida iyo sidoo kale weeraro argoosi ah oo ka dhan ah bulshada deegaanka.